call again, Hotel Golf. Report again, Hargeysa, over. Say again? Heads up cooperation, confirm? diyaaradii Soomaaliyeed oo sidee rakaabkii dhamaa 120 qof diyaaradaasi oo ku jirtay duulimaadkeedii 404 diyaaradaasi oo ahayd Boeing 77 oo ka tirsan shirkadda Somali Airlines diyaaradaasi dhawaan afduubeen niman argagixiso ah oo ka kooban 5 diyaaradaasi oo ku sii jeeday Jidda waxa ay sidii dadweyne isugu jira Soomaali daawadayaal waxaa farxad inoo ah inay maanta soo degtay diyaaradii rakaabka ahayd ee nooceedu ahaa Boeing 707 ee shirkadda Somali Airlines kuna jirtay duulimaadkeedii 414 ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho diyaaradaas oo ay afduubeen niman argagixiso ah sabtidii la soo dhaafay waxa ay khasab ku fariisiyeen ayagoo ka jeediyay jihada ay ku socotay diyaaradaas oo ahayd Jidda inay ku weecato degtana magaaladaasi Addis Ababa diyaaradaasi waxa ay sitay rakaab dhan 120 oo isugu jiray rakaabkii ka shaqaynayay iyo rakaabkii la socday diyaaradaasi waxa maanta nasiib wanaag ah inay saacadatan oo saacadu ay ku taagan tahay 5 la ay ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho waxa shacabkaas aad maqlaysaan iyo sida idin muuqataba hortiina taagan diyaaradii ay soo dhaweeyeen madaxdii dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyagoo farxad iyo reereyn ay ka muuqato taasoo ah wax lagu farxo cadowguna uu ka naxo maanta iyagoo bad qaba haddii ay soo degtay diyaaradii Somali Airlines oo dhawaan ay afduubeen nimanka argagixisada ah taasoo ah wax dhibaato u keenaysa reeleen la soo dhaweeyay ummadii Soomaaliyeed madaxda qaranka oo dhamaantoodba ay shucuurtoodu ka muuqato si farxad leh taasoo ah wax lagu farxo cadowga Soomaaliya labanta koonfureed iyo labanta waqooyi iyo Talyaani Mareykan maanta waa inoo farxad iyo reereen haddii aan inagoo faraxsan diyaaradii oo bad qabta iyo rakaabkeediiba ay ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho si wanaag noo ah maanta inaad u jeedaan rakaabkii Soomaaliyeed ee lagu afduubay diyaaradii Boeing 707 oo sidii rakaabkii Soomaaliyeed oo u jeedaan qofkii ugu horeeyay in si farxad iyo reereen lagu soo dhaweeyay iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay in ummadaas Soomaaliyeed Ilaahay ka soo samtabixiyay gacanta gumaysiga iyo argagaxsadii foosha xumeed ee dhawaantaan afduubtay ay maanta ka soo degeen iyagoo bad qaba dhamaantoodba daawadayaal waa wax lagu farxaa ummadeennii oo nabad qabta oo ka soo degay rakaabkii Boeing 707 iyagoo bad qaba oo caafimaad qaba oo maanta aad inoogu jeedaan inay ka soo degeen diyaaradii Boeing 707 oo ku sii jeeday Jidda sabtidii dhaweedna ay afduubeen nimankii argagixisada ahaa taasoo ah wax dhaawac u geysanaysa qawaaniinta u taala rakaabka sida diyaaradaha rayidka ah haatana baliniina ku arkaa ummadaasi siday farxadda iyo reereynta ugu noqoto iyagoo gadaal ugu soo noqday dalkoodii hooyo iyagoo Ilaahay ka soo bixiyay gacantii argagixisada iyo gacantii cadowgaba socdaa soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyay oo ayagoo bad qaba ka soo degay maanta gegida caalamiga ah ee magaalada Muqdisho waana u jeedaan ayagoo farxad iyo reereyn ay ka muuqato dadweynihii saarnaa iyo rakaabkii saarnaa diyaaradaasi oo ku soo noqday dalkoodii waliina waxa socda madaxdii oo gacan qaadaysa rakaabkaasi ku soo laabtay dalkooda kana soo baxay gacantii argagixisada qiimaha iyo qadarinta loo wali waxa socdaa soo dhaweyntii lagu baray isagoo gacan qaadaya dadkii rakaabka ahaa Ilaahay ka soo samtabixiyay gacantii gumaysiga dadkaasi oo ah dad Ilaahay ka badbaadiyay gacantii argagixisada Soomaaliya maanta ka duushay magaalada Muqdisho oo ku sii jeeday arigaasi sida ah waxa haatan indhihi loogu jeedaan rakaabkii saarnaa diyaaradaasi oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre indhihiina waad ku
aragtaan ayagoo ummadaasi ay ka muuqato farxad iyo reynreyn ayagoo nabad ugu soo noqday ciidoodii hooye haddaba indhihiinna ayaad ku aragtaan isla markaana ah wasiirka gaashaandhigga jaalle sareeye guud maxamed cali samatar iyo madaxdii dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya oo dhammaanteedba soo dhoweynaya dadweynaha soomaaliyeed ee dib ugu soo noqday rakaabkoodii iyagoo nabad qaba oo bad qaba ayaga iyo diyaaradoodiiba haatanna fuulaya basaskii loogu diyaargaroobiyey inay halkaani ka qaadaan wax qaba oo raacay basaskii loogu talagalay laguna soo dhoweynayey in lagu badbaadiyo laguna geeyo hoygoodii iyagoo nabad qaba taasoo farxad iyo reereen oo ah dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo inta jecelba nabadda waxaadna u jeedaan dadweynihii rakaabka ahaa oo saarnaa diyaaraddaasi oo haatan koraya basaskii loogu talagalay in ay ka daadgureeyaan gegada diyaaradaha ee magaalada muqdisho daawadayaal weli waxaa socda soo dhoweyntii lagu soo dhoweynayey rakaabkaasi oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad jaalle sareeye guud maxamed cali samatar iyo madaxdii dalka oo dhan socda soo dhoweyntii la gacan qaadayey rakaabkii saarnaa diyaaradda boying kuna jirtay sudcaalkeedii ilaahayna maanta iyadoo nabad ah oo ay fiyo qabaan dadweynihii saarnaa rakaabkaasi iyo diyaaraddiiba ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada muqdisho dadkaas oo farxad iyo reyreen ku gacan qaadaya madaxweynahooda jaalle maxamed siyaad barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya isla markaana ah wasiirka gaashaandhigga sidaad u jeedaan waxaa weli soo degaya oo ka soo degaya diyaaraddii rakaabkii la socday diyaaraddaasi daawadayaal waxaa weli aad u jeedaan dadweynihii la socday rakaab oo maxay ku soo fiyo noqday ayagoo nabad qaba gegida diyaaradaha magaalada muqdisho uuna gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya maxay u jeedaan duuliyihii diyaaradda boying oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya xaaji dhagax iyo duuliye ku-xigeenkii diyaaradda boying cali dalays waxayna u dhaqaaqeen markaan dhinaca diyaaradda iyo kuwigii ka shaqaynayay diyaaradda boying oo gacan qaadaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya oo dhan iyagoo fiyo qaba dadweynihii rakaabka ahaa oo la socday diyaaraddii rakaabka ahayd ee shirkadda Somali Airlines Boeing 707 oo ku jirtay duulimaadkeedii 414 dadweynahaasi oo galabta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo bad qaba iyaga diyaaradoodiba waa dadweynihii dhawaantan ay afduubeen nimanka argagixisada ah iyagoo ku sii jeeda duulimaadkooda ahaa Berbera Jidda duulimaadkii dadweynahaasi oo Ilaahay ka soo samata bixiyay gacantii argagixisnimada maantana ku soo noqtay iyagoo bad qaba dalkoodii hooyo wajiyadoodana ay ka muuqato farxad iyo reereyn iyagoo jooga maanta ciidoodii hooyo taasoo ah farxad ummadda Soomaaliyeed dhamaanteedba ay u soo hooyatay weli waxaan ku jirnaa duulimaadkii dadweynihii ka soo degay galabtay oo ka soo degay diyaaradii Boeing 707 oo saarnaa diyaaradii Somali Airlines dhawaana ay afdubeen nimanka argagixisada ah waxaana hortiina fadhiya rakaabkii oo fiyo qaba iyagoo farxad iyo reereyn ay wajidooda ka muuqato dadweynihii Soomaaliyeed oo dhamaana ay gacmo furan iyo si reereyn iyo farxad ku jirto u soo dhaweeyay weli waxaad u jeedaan rakaabkii oo fadhiya oo dhawaan ka soo degay qayb kamid ah diyaaradii Boeing 707 dadweynahaasi oo farxad iyo reereyn ay ka muuqato ayagoo bad qaba caafimaad qaba ciidoodii hooyo ku soo noqday galabtana rakaabkaas oo kamid ahaayeen rakaab ajaanib Soomaali rakaabkaasi waxa kamid ahaa oo kale rakaab Yamanta waqooyi iyo Yamanta koonfureed Talyaani Mareykan iyo Soomaaliba markana waxa hortiina fadhiya shaqaalihii ka shaqaynayay diyaaradii Boeing 7 la socdayna diyaaradii duulimaadkeedu ahaa 414 iyagoo fiyo qaba galabtana ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho rakaabkaasi oo dhamaan 12 qof waxaad u jeedaan hortooda inay hortiina fadhiyaan iyagoo fiyo qaba farxad iyo reereynna ay wajiyadooda ka muuqato maadaama iyagoo caafimaad qaba nabadna qaba ay ku soo noqdeen ciidoodii hooyo hortiinana waad u jeedaan dadweynahaasi iyo rakaabkaasi sida ay ugu faraxsan yihiin ciidooda hooyo
arkayso weli waxaanu ku jirnaa rakaabkii la socday diyaaradii Boeing 707 ee shirkadda Somali Airlines gaar ahaan waxaa hortiina fadhiya shaqaalihii ka shaqaynayay diyaaraddaasi markana waxaan wareysanaynaa diyaaradan shaqaalihii ka shaqaynayay oo aan ka wareysanayno bal sida ilaahay uga soo sameeyay bixiyay jaalbal magaca علي سعيد أحمد دلايس باليراني علي سعيد bal waxaad nooga warantaa afduubkii diyaaradii Boeing 707 iyo sida ay u dhacday iyo sida u dareenteenba iyo xilligu bilowday والله markaan dhaafnay magaalada la yiraahdo Gaalkacyo oo marayno meel la yiraahdo Buurtille ayaa niman burcadiyaal ku soo hujumeen meeshina waxay ka ridaan xabadihii si dayuuradda aan u badbaadino xabadaha joojiyay niri ninna waa naga dhaawaceen dad badan waxay ku gaarsiiyeen markaas waxaan niri meesha rabtaan waa idin keenaynaa xabadaha naga joojiye sidaas u dhacday horta xaajada bal waxaad nooga warantaa intii dhibaato muddadii aad gacanta ku jirteen afduubiyaasha aad la kulanteen wallahi waxyaalo badan oo naxdin iyo bastoolad dhunta la iska saarahaya iyo qof caluufa lagu tufahayo iyo qof la dalbaaxaya iyo qof tareel madaxa looga dhufanaya iyo qof la leeyahay aduu qolama tahay iyo waxyaalo badan ayaa la kulanay muddadii aad ku jirteen gacanta afduubiyaasha aadna ka degteen gegada diyaaradaha ee magaaladaasi Addis Ababa bal maxaad dareemteen markii hore intii xaajadan lagu heshiin in la soo daayo waxa dawladda Itoobiya nimankiina watay dayuurada way kala wareegeen markaas ay ku soo cesheen dayuurada ku soo cesheen markaa nimanka waxay yiraahdeen meesha haysta annaka kuruga gabdhaha ma aha inta yada nimanka meel gooniyaha la geeyay baawur dhaxdi baawurkaas aan seexan jirnay intooda kalena galab walba waxay oran jireen dayuurada waa qarxinaynaa soo gala sii baxa waxaan markana wareysanaynaa bal shaqaalihii kamid ahaa diyaaraddaasi qof kamid ah jaal adi magaca Khadiija Xasan bal waxaad iga warantaa guud ahaanba afduubkii diyaaradii Boeing 707 weli waxaan ku jirnaa kuliga ama shaqaalahaasi ka shaqaynayay diyaaradda Boeing 7 abay magaca faadimihiisa bal waxaad iga wartaa guud ahaanba afduubkii iyo waxa aad dareentay cabsi ahaan iyo wixii kaleetaba wallaahi ani waxaan ka shaqaynayay diyaaradda xaggeeda dambe marka hore wixii u dhacay oo ka dhacay diyaaradda kama warqabo laakiinse markii dambe anigoo shaqadii wadna oo dadka quraac siinayna 45 daqiiqo kadib markii duulimaadka uu socday waxaa dhacday nin gacanta ku wata bambooyin iyo bistoolado inuu noola soo galay anigu markii horeeto maadaama ay ahayd waqti ugu horeeyay oo aan aragno wax argagixisa marka hore naxdin ma aan qaadin sababtoo waxaan u maleeyay inuu yahay nin ama sakhraan ama waalan rakaabka ayaan isku daynay bal inaan dejino iyagoo inay isku dayaan inay xitaa ka qabtaan waxyaabaha wati marka waxaan nidhi waa malaha nin waalan waa la qaban doonaa iska fariista marka kadib waxaan aragnay ninkan inuu wato hub uuna ka sheegay meeshii inuu na qarxinayo haddaan isdhaqaajino alaabtii aan wadnaan ka gurnay meeshii wuxuu nagu amrayna waan yeelnay ilaa aan ka tagnay gegada Addis Ababa اهلا يا احمد خالد حمدي بشتغل السكرتير الاول التجاري للسفاره المصريه في مقدشو. فكيف كان احساسك عندما اختطفوا الطائره؟ والله كان احساسي هو الخوف على حياه جميع الركاب وباعتبار ان انا مصري مقيم في بلدي الثاني اللي هي الصومال كنت بامل ان الامور كلها تمشي على خير ما يرام وان احنا يعني يستر معنا ربنا ونرجع الى وطننا ثاني الصومال سالمين غانمين معافين من كل خير ومن كل سوء كمان. اهلا اخ احمد فكيف تعاملوا معكم المختطفين؟ والله وضع طبيعي انت تعلم المختطف لما بيختطف الطياره بيبقى يعني غير قابل على انه يسيطر على اعصابه فكانت ظروف كانت عصيبه المت بينا في خلال الرحله خاصة فوق منطقة خليج عدن لما رفضت السلطات العدنية انها تستقبل الطيارة وكانوا بيرغبوا في تحويلها الى ليبيا لكن الكابتن علمي الحقيقة وده من احسن الطيارين اللي اعتقد ان انا ركبت معهم قبل كده تصرف بحكمة وذكر انه لا يوجد بنزين يكفي في الطائرة الى السفر الى ليبيا فطلب النزول في الحبشة والسلطات الاثيوبية سمحت له بالنزول في الحبشة في هذه الفترة فكانت فترة كانت عصيبة الحقيقة في تغيير الاتجاه ما بين
فوق خليج عدن إلى الحبشة كان يعني ظروف كانت عصيبة شوية على الأقل من الناحية الفنية في المناولة مع الطائرة ذات نفسها. فهل كان هناك أجانب أخرى من ضمن كان في 4 أجانب، احنا كنا 5 أجانب على الطائرة، 2 إيطاليين وأمريكي وأخ سوداني بيعمل في الأمم المتحدة، وأنا المصري الخامس اللي كنت معهم. وال4 تخلفهم في الحبشة، وأنا يعني كنت مصر بشدة على إني أرى ضروري أرجع مع الإخوة الصوماليين على نفس الطائرة، باعتبار إن احنا أصحاب مشكلة واحدة. فسافرنا على نفس الطائرة ورجعنا مع بعض على نفس الطائرة. شكرا. أهلا وسهلا، مرحبا. كنا waxaan wareysanaynaa kabtankii diyaaradii Boeing 707 inshallah kabtan bal waxaad nagu wartaa guud ahaanba afduubkii diyaaradii Boeing 707 sidoo u dhacay iyo xilligu bilowdayba. wuxuu bilowday 45 daqiiqo kadib markaan duulay, maadaama laba xabadood ay meesha ku yaartay. intaan dadaali karnana ayaan dadaalay. nimankii security-ga ahaa oo diyaaradda la socdayna ay ka quusan waayeen ilaa aniga aan ka joojiyo si ay loo badbaado. waa amrullah. bal waxaad kaloo nagu warantaa wakaaladaha wararku waxay sheegayaan in isbitaal lagu dhigay adiga, bal arrintaasina maxaa ka jira? aniga isbitaal lama dhigin, laakiin isbitaal 2 jeer waa la geeyey. waxaad kaloo nagu warantaa xilliga aad joogteen gegida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa iyo macaamilkii leedin kula dhaqmiyay xilliga aad afduubka gacanta aad ku jirteen argagixisada. annaga gacanta argagixisada waxaan ka baxnay diyaaradda dhulka markay degtay. waxaa la wareegay Ethiopian authority-da la wareegtay 3 saac ka bacdi ayaa lagu soo ceshay gacanta argagixisada. markii lagu soo ceshay gacanta argagixisada kadib macaamalka ayaga ayna tusayaan Ethiopianka waa u fiicnaa. inshallah magacaad Sucaad baladna waxaad ka warantaa guud ahaanba afduubkii diyaaradii iyo xilligu bilowday iyo sidii maxay tahay waqtiga dareenteen idinka in leedin afduubay. wallahi soo ku sheegay kabtanka ku horumariyay 45 daqiiqo kadib. deewaanka saay sida ku dareentay in afduubtahay in kala adiga. waxaan ku sheegay inaan waxaan ku dareemay markii haddaan la dareemin anaga kama joognay markii ninka xumbo watigu hubaysnaa soo dad wax laga qaban karaa ma jirinba. waxa su'aalaydu weydiiyeen afduubiyaasha ayaga sheekaysanaya markii ayaga labaha midna hore midna gadaal ayaga war isu gudbinaya markii waxay lahaayeen astaamo qaasa ay ku wada hadlaan mar sigaar ama asbriina marka macnaha waxa way dadka meesha tiradooda intay leegiin bay ku sheeganayeen. marka dambe aan dareemay ogaadeen waa ila soo baxayba oo cararay waxna laga qaban karin mar haddaan qabanay oo xabadii riday maxaa laga qaban karaa waan u sii daynay meesha buu galko gubtay hada qofka laga qabsado marka kala maxaa laga qaban karaa xabadii baan ka qaadnay laakiin se inuu qarxiyaan ka baqanay wixii sugan siinay sidaas inuu geysteen wadankay rabeen. waxaanu waraysi la yeelanay duuliyaha diyaaradda waday maxamuud xaaji cilmi oo ahaa duuliyihii diyaaraddii ay afduubeen 3 nin ka afduubeen markii ay maraysay gaalkacyo oo dabeedna ay fadhiisiyeen gegida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa. waxaanu ka waraysanay bal inuu noo faahfaahiyo sidii uu u dhacay afduubkaas. afduubkaas wuxuu u dhacay dad argagixiso ah ayaa diyaaradii qolka noogu soo galay. nin darees kabtan ciidamada asluubta labisan oo gacanta bastoolad ku haysta waxaa daba ordaysay oo ku dhaganeed gabadhii ugu sarraysay hoosteesyada Sucaado, waana ay ku duubneed. waxaa isla markaana daba ordayay oo ku dhaganaa yar oo ah dadkeena diyaaradaha ka shaqeeya cali. ninkaana wuxuu qasdigiisu ahaa in uu xabadda ugu waxyeeleeyo si uu diyaaraddaas u hantiyo. waxaa u dhici weyday xabadda oo uu la xarbinayay. intuu dagaalkaas socday markii aniga aan isha ku dhuftay waxaanba u qabay qof aniga dacwad
iigu socda umaba aanan qabin qof oo annaga duulaan nagu ah markii ay isku qabsadeen ay ku dirireen oo aan u soo istaagay si aan u kala dhiciyo ayay xabaddiisii u meel martay uu ila soo aaday gamista uu xabadda gamayey ayaa isla markiiba waxaa haleelay yarkii cali ahaa oo qabtay kuna dhacday xabadda kadib waxa uu ka xoroobay dadkii ku dheganaa annagii diyaaradda wadnay ayuu na milkay oo uu bastooladiisii nagu kallifay in aan u hoggaansanno awaamirtiisa kabacdi markaad amaawiirtiisa u hoggaansateen xaggee baad idin yidhaahdeen nageeya wuxuu yidhi noo wad cadan markii aan cadan diyaaraddii xaggeeda u hoggaaminay waxaan la hadlay dowladda kontaroolka cadan anigoo ka codsanaya in ay tixgeliyaan dhibaatadan haysata iyo in aan nala afduubay dadkaan afduubayna ay ahaayeen dad aan noo aabayeelayn noona weydiiyaan dowladda cadmeed in aan ku degno dhulkooda dowladda cadmeed maxay idin tiri dowladda cadmeed waxay noogu jawaabtay qaynuun baa jira internationaale ah oo ka soo baxay united nationka u diidaya dowladaha ku biirsan united nationka oo dhan ay wada saxiixeen oo ah in gacanaan lagu siin karin loona ogolaan karin dadkaas wax soo afduuba in la siiyo si ay ugu suura gasho dhibaatadoodaas ay dadka gaarsiinayaan loona ogolaan in ay degaan ayraboorada dowladaha saxiixay qaynuunkaas dabadeed markii cadan idin diiday maxaad yeesheen cadan markayna diiday cadan waxay ka baqday inaan xoog ku degno ayraboorkeedii ayay xiratay waxaan maadaamaan af carabi ku weydiistay codsigaas waxaan weydiistay af ingiriisi inay igu jawaabaan mar labaad si nimankii afduubay ay dhagahooda ugu maqlaan in naloona diiday ayraboorkana xiran yahay go'aan bay gaareen labaad oo ah in aan geeyo ayraboor kale hase yeeshee go'aano kala duwan bay markiiba gaarayeen markii dambena waxay na weydiisteen nagu amreen in aan geyno addis ababa dabeed airboorka addis ababa wuu ogolaaday inaad kusoo degtaan miya isla markiiba airboorka addis ababa markaan la kontaad garaynay way ogolaadeen markii aad addis ababa tagteen maxaad la kulanteen maxaase dhahay markii diyaaradda halkaa ku degtay diyaaradda addis ababa markaan ku degnay waxaa dhacay in ciidamadooda na heraariyeen dad kale oo addis ababa intaan u soo soconnay addis ababa ayay waxeen dad isla argagixislayaashaas ah oo dhibaatadaasi ogolaa ayay weydiisteen in ay yimaadaan ayraboorka markii aad airboorka tagteen ma ninka argagixisada ay weydiisteen inuu yimaado airboorka ma ugu yimid wuxuu ugu yimid maalinkii labaad buu ugu yimid markii aad ka degteen gegida airboorka maxaa ka dhacay airboorka maxaase ka dhacay diyaaradda dhexdeeda markaan diyaaradda ka degnay bacdamaa diyaaradda markaan joojinay oo matooraadkeeni weli uu noo shidan yihiin oo ay nagula wareegsan yihiin ciidamadii etoobiyaanka waxaa dhacay in ay la hadleen tooraha ay yidhaahdeen ma yimid oo la yidhi weli ma la imaana sug waxaa kadib tooraha yimid nin soomaali ah oo la yidhaahdo saciid ninkii iyo waxaa iswaraystay kuwiina soo afduubay waa isgarteen degdeg noogu imow ayuu yidhi degdeg buu ugu yimid kadib baa
ilinka diyaaradda la furay. Mariin Maxamed Aadan. Waxaa inooga warantaa markii aad ka degteen garoonka diyuuradaha Addis Ababa waxyaabihii aad la kulanteen meesha laydin geeyey iyo qaabilaadii laydin qaabilay sida ay ahayd. Waxaan nala geeyey markii aan diyaaradda kasoo degnay guryeeri baa nala saaray aeroboortkaana nala geeyey meel ka mid ah waxaanan joognay habeen iyo maalin kabacdina waa nala ka kaxeeyey waxaa nala geeyey hotel si annaga markii nala qumanayd baana naloo qaabila. waxaanu ka codsanaynaa inaad noogu waranto si kooban waxyaabihii afduubayaasha intii ay afduubeen diyaaraddii aad la socoteen idinku dhacay. wallaahi annaga iyo idinkaaba ku warnaan annagu sidii markii nala qabsaday waan u foorarsanay waa nala gugeey. kadib markaa ka degteen garoonka diyaaradaha Addis Ababa waxaa nagu maqaalaa in maaragtay ay idin qaabileen dadka firsan dowladda Itoobiya oo la soo dhaweeyay. arrintaasi maxaa ka jira? waxaa jira waan la soo dhaweeyey habeen iyo laba maalmood meesha CIB-da lagu hayay aeroboortka gudihiisa habeenkii dambana hotel kale nala geeyey oo saddexaad. macnaha ma inta laydin geyn hotel ayaa laydinku hayay VIP-da? inta hotelka nala geyn baa CIB-da lagu hayay habeen iyo laba maalmood. intii aad ku jirteen gacanta afduubayaasha siyaabahay idinla macaamuloonayeen? wallaahi si aan annagu markii naxariis darro u qaadanay inuu la macaamiloonay aad bay noo hajiyeen oo noo dileen oo noo dhibaateeyeen. anigoo ka wakiila rakaabkii diyaaradda Somalia Airlines ilaahay nabadgelyada ku keenay dhulkooda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay abaalkoodana aanan gudi karin shucuurkii ay noo muujiyeen ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed. waan ka filaynay walaalaheen haddana waxaan idin sheegayaa intii aan ballan qaaday oo ahaa wixii ku saabsanaa markaan joognay Itoobiya in markii aan la xiriiray dawladdeena intii in ka badan inay idinka ballan qaaday. waa mahadsantii. anigoo magaca rakaabkii saarnaa diyaaraddii Somalia Airlines dhibaatadii aad wada maqlayseen ay ku dhacday ilaahay jabbaarka ahaana naga soo celiyey annagoo nabad qabna waxaan mahad buuxda qiimo iyo qadarin mudan ammaan ballaaran leh u soo jeedinayaa kabtankii wada diyaaraddaas iyo caawinayaashii goonyihiisa fadhiyey iyo dhammaan shaqaalihii diyaaraddaas ka shaqaynaya oo idil
marka labaad waxaan ammaan iyo mahadnaq ballaaran qadarin ballaaran leh u jeedinayaa dowladda soomaaliyeed ee madaxweynaha aan jecelnahay maxamed siyaad barre hogaaminayo iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad iyo kan saddexaad iyo dhammaan guddiga siyaasadda kan labaad ahay iga raalliahada waa saase kan koowaad iyo kan labaad waa raalli ahada waa iska adduun iyo tabaarihiisa waa jidbaysnaaye waxa weeyaan sidii aanu soo marnay sida daqiiqad quran naloo halmaansiiyey aad iyo aad baana jecla madaxweyne ku-xigeen ku mahadsantaha afgarato xogeeyaha guud ee xisbiga hantiwadaha kacaanka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya ha noolaado cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo xisbiga hantiwadaha kacaanka soomaaliyeed ha guulaysto madaxda dowladda soomaaliya ha noolaato jaalle guddoomiye ku-xigeenka koowaad madaxweyne ku-xigeenka koowaad hogaamada wasiirada dhammaanba madaxda dowladda oo halkan hadda joogta waa salaamantiin anigoo ku hadlaya sidii saaxiibbaday iga horreeyey magaca maxaanku idhahay rakaabkii saaraa dayuuraddii la aftuubay ee shirkadda Somali Airline kuna soo nabad noqday dalkoodii hooyo waxaan marka hore mahadda koowaad u celinayaa ilaahay oo aan leeyahay ilaahay baa mahad leh talabaad waxaan mahad